sabab aan ku shaqeysto oo magaalada ku maray ma haasto qofaa xuriye shaqeysan karo qofaa xuriye dabcan codka iyo muuqba garatay kani waa maxamed cabdiraxmaan iyo afadiisa ruqiya cabdullaahi lamaanihii qaranka balse maanta uu wehelinayo wiilkooda yar ee aan weli sanad jirsan lamaanahan oo hadda ku nool magaalada muqdisho ayaa wajahaya xaalad adag oo dhinaca nolosha ah tan iyo markii uu geeriyooday gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir injineer Yariso kaasi oo markii horeba dusha u ritay noloshooda cidla ciirsi halis amni iyo sidoo kale nolosha oo ay xabsi guri ku noqdeen ayaa isugu darsantay maxamed ayaa si dareen leh iiga codsaday in aan muuqaalkiisan la wadaago bulshada si intii caawin kartaa ay u garab istaagto qoyskiisan ehelka u noqday murugo iyo nolol adag gabartan guurka markaa guursaday inaa adeerkayga fooqa loo dilay si xunaan loo dilay qof bilaadan saas looma dilo waan la gubay guuga kadib waxaa dhacday inaa aniga oo marba meel aan ku dhumano meel aan ku harsan abaa ka siwaani marba meel aan ku dhumanayni waxaa wataa adeerkayga garow igu siinayay gabartii haddii adeerkayga la dilay kadib aniga inaa la dilay ayaa isweydinaya laba qofoodna isweydinayso anigana cabsi darteeda gabartii aa la dhumanaya marba habeen marba meel seexanayni markaas kadib waxaa dhacday inay dad garab nagu siiyaan oo meel nagu qariyaan markii meel nagu qariyaan kadib waxaa dhacday inuu injineer Yariso inuu garab na siiyo oo meesha naga soo kaxeeyo markaas kadib meesha asana keenay intuu noolaay maasha Allah gabartii ilaahay wiil iga siiyay wiilka hadda waxaan ku sameeyay adeerkayga Axmed Doole aan ku sameeyay markaan ku sameeyay adeerkayga Axmed Doole injineer Yariso waa Allah u naxariisto waa dhintay markaas kadib injineer Yariso markuu dhintay kadib ilaa markaas wax oo daryeel ma haasano meel cidla taaganahay haddii aan shaqeysan lahayna sabab aan ku shaqeysto oo magaalada ku maray ma haasto qofaa xuriye shaqeysan karo qofaa xuriye ma shaqeysan karo runtii inkasta oo hadda ruqiyo iyo maxamed aad isku jecel yihiin iskuna qanacsan yihiin haddana waxay markasta u baahan yihiin inay helaan nolol wanaagsan taasina waxay ku hergeli kartaa kaliya shacabka Soomaaliyeed oo garab istaag u muujiya lamaanahan isjeclaaday balse waqtiga iyo qadarta alle ay ku dhacday waa kan mar kale maxamed oo cod dheer walaalihiisa Soomaaliyeed kula hadlay waxaan ka rajeynayaa Soomaali inay garab qabtaan ay garab siiyaan inaa bilaadanimo la fiiriyo oo muslimnimo la fiiriyo oo islaamnimo la fiiriyo oo garab la siiyo walaalay waxaan ka codsanayaa Soomaali inay garab siiyaan gudoomiyaha gobolka cusubna asna waxaan ka codsanayaa inuu garabna siiyo oo Soomaalnimo waxaan ugu qabto si booskii gudoomiyaha Allah u naxariisto injineer Yariso inuu noo buuxiyo aan ka codsanaynaa gudoomiyaha gobolka cusub taasoo asna ka codsanaynaa dawladeena sidoo kale waxaan ka codsanaynaa in garabna siiso ayadaha adduunka dhan waxaan ka codsanaynaa sidoo kale ayagana inay garabna siiyaan aan ka codsanaynaa haddaba walal caawi oo ka qayb qaado gurmadka walaalkeen iyo qoyskiisa